hebel baa mulkiila u ah nooba lena dowlad mulkiila leh maya lena dowlad shacabku leeyahay waa inaanu samaynaa waxaan u taaganahay dowlad shacabku leeyahay inaanu gaarno waxaan marka arrintaas qof walba xil baa ka saaran dhammaanteen xil baa naga saaran aqoonyahan xil baa ka saaran waa inaan ka hadalnaa waa inaan rays garaynaa waxaad ka warqabtaan 20 sano ugu dambeysay ee dowladda fashilantay ee jirtay siyaasadda dalka waxaa gacanta ku hayay 3 kooxood ama 3 group koox waa garanaysaa waa kooxda loola jiray hogaamiye kooxeedyada ولنا واجهنا سيستم كمدي استخدام الباور كوحنا وقرد المحاكم تا يورتي مديدي متصوت كلنا يو ودك قاعد باي وحسب دحيه نون دايس براكي ماده وصدق سنه افرت سنه ودك كما قنا وان حب بدن كهين دغان انا هين ددنا كجوبين دبا بدن كانا او waxaan filayni war wadamada ka timaadeen wixii ka jira wanaagsan noo keena kuwii joogay ka liitay marka saddexda kooxood 30 sano ayay noo taagnaayeen iyaga soo celino diyaar ma unahay ayaga soo celino diyaar ma unahay waxaan rabnaa saddexdaas wax ka duwan dad ka duwan ka aragti duwan ka filosofi duwan ka warqaba wadanka waxa ka jira daacadnimadii leh dadnimadii leh hogaaminteedii leh barna codkeena na tusa waxa rabtaan waa inaad sheegtaan waa inaad banaanka la istaagtaan madaxweynaha jamhuuriyadda hadda xilligiisu sii dhamaanayo qof kasta waa bedeli kara laakiin qof kasta inuu bedelo marabo qof in lagu bedelo macna weyn ma soo banayso laakiin waxaan rabnaa qof bedeli kara nidaamka faashilka ee jira oo dawlad dhab ah oo ummadda wax tari karta samayn kara oo leh hogaaminteedii dadnimadeedii aqoonteedii ka warqabkeedii dareenkeedii marka inaan niraano qofba qof bedelayna no waxaan leenahay waxaan rabnaa isbedel dhaba oo nuxura dad badan baa waxay weydiiyaan markaan hadda meelaha joogo shirka musharaxiinta haddaad musharax tahay maxaa uga qaybgali weyse su-aasha ugu badan la weydiiyo marka waxaan ku yidhahdaa anu isbedel doon baan ahay fursad doon maahi macnaheeda waa garan kartaan baan u oranay su-aasha kale ugu badan la weydiiyo waxa waaye fartaan taagan maxay tahay fartaan taagan waxay tahay ilaahay waa waaxid soomaali waa mid dantooda waa mid luqadooda waa mid waa walaalo aan isdiidi karin دكتور حسن وحو شيغي انيغا صح waxaan ku dhashay magaalada Galkaayo iskuulka ilaa galaaska saddexaad baan ku soo dhigtay iskuulka ilaa bartaad galaaska afraad xamar baan uga baxay ilaa jaamacada aan ka baxana waxaan joogay xamar kulliyada waxbarashada la fooraan waxaan ka baxay 1981 kabacdina 82 waa dhoofay qurbaanaaday muddo 20 sano ku dhow baan maqnaa waxaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya 2000kii bishii November bishii aan kaleeto 20 sano ayaan hadda wadanka dhex joogaa marka qurba joog ma saas ku ogaal muwaadin loo kala oo ka warqaba waxa dhabta ee wadanka ka jira ayaanahay wadanko dhanna waa ka soo wada shaqeeyay 20 sano waxaan ka shaqeynay waxa u banaa ganacsi ama business development strategies waxaan abuurnay shirkado fara badan oo ah in dadka shaqo loo abuuro iyo xirfad marka sidoo wadanka oo xoolaha aad u runtii u guulaysanay hadda dadku ay aad u abshiid galeen waxa kamid ah dadna ay xoogaa qoraan waxa way mootooyinka bajaajka la yiraahdo magaalada xamar hadda macnaha weyn kale wixii aanu keennay bay kamid tahay dadka noloshooda inta ku maaraysa inta ka shaqeysa waxaan u bixinay shaqo abuur marka barnaamijkaas aan sameynayni shaqo abuur baan si dhalinyarada aysan u aadin badda ugu dhicin oo Yurub ugu tagay u taariibin ama $20 loogu kireysano wax dil ama wax qarxi ama mooyaan aan looga dhigin ayaa dad badan baa ka faa'iiday dad badan baa ku bartay dad badan baa noloshooda ka maareeya alxamdulillah waan idin soconaysaa ilaa iyo barnaamijka bedela la helo oo aan leenahay
dadka noloshooda maanta ku xiran laakiin beritoole waa la bedeli karaa wax ka fiican balbad dhalinyarada gaar ahaan waxaan leeyahay maadaama hadda la yidhahdo waxaa tihiin majority-ga maaragtay bulshada qaybaheeda marka la yidhahdo xil gooniyaada saaran inaad is-abaabushaan inaad mas-uuliyad qaadataan in waddankan dadka loo tababarayo mustaqbalkiisa iskala waadinka aad waxa aad rabtaan oo xumaanta oo waddankeena dhibaatada ku aad diidaan wixii saxa ana aad difaacdaan musharaxa aad ku kalsoon tihiin haddaad garab siisaan asagaa madaxweyne noqonay markaan daraaseeyey oo ayri maxay tahay dhibaatada dowladnimada soomaaliya u shaqayn laadahay maxaase u baahannahay si aan u fiksi garayno ama aan u saxno ama wax uga bedelno oo dowladaasu macno u yeelato waxaa weeyaan qodobada halkaa kusoo qoray maxaa u horeeya dhowrista iyo dhamaystirtiga dastuurka waayo dastuurku waa gundhiga nidaamka dawliga ah waa wixii ay bulshada soomaaliyeed ku heshiisay oo xeerka u ahaa oo qeexayay hay'adaha dawladda awoodda mas-uuliyiinta xeelkaas qabanaysa oo laga minguurinayay shuruucda dalka lagu dhaqayo waa asaga laakiin nasiib daro waxaa abuurmay dhaqan siyaasadeed oo aan dastuurka xagga inta isaga ninka madaxweyne noqdo wuxuu rabo uu subiyo laaluushuu bixiyo cidduu rabo xil u dhiibo cidduu rabo uu mas-uul ka dhigo uu iibiyo marka dhaqan siyaasadeedka abuurmay wuxuu lid ku yahay dhaqankii dawliga ahaa oo dastuurka ku saraysnaa oo la yidhahda constitutional order ama constitutionality haddii marka dastuurka la ilaaliyo oo lagu dhaqmo oo ummadda waxay ku heshiisay la dhowro waa bilowgii dowladnimada hirgelinteeda oo waddada saxaa lagu ridi laha qodobka labaadna waxaan nidhi rule of law ama ilaalinta sarraynta sharciga sharci waa waxa kala hayda ummadda waa waxa ummaddu ay ku aamintay dowladdeeda oo ay u aamintay inay leeyihiin caalamkuna nagu ixtiraamayo inaan noqonno ummad sharciga dhowrta oo sharciga wax u kala gooyo laakiin haddii sharcigii ninkii la rabana lagu fulinayo ninkii awoodda yarana lagu fulinayo ninkii awoodda lahana uusan qabanaynin waxyaabaha naloo leeyahay dowlad fashilantay bay tiimay kow ka tahay waxa weeye sharci kuma dhaqanno dastuur ma kala jecin marka rule of law iyo sarraynta sharcigu waa aasaaska dowladnimada haddaanu rabno dowladaan noqonana waa inaan asaga ku mintinaa oo meel marinaa qodobka saddexaad waxaan ka dhignay isla xisaabta waxaa nasiib daraa madaxweynihii baa loola bixinaya lagu leeyahay wasiirkii baa loola qaadanaya lagu leeyahay cid walba xaqay samaynaysaa cid la isla xisaabtamaya ma jirto nin mas-uul oo dowladda u shaqeeyo dadku wada yaqaan baa guryo dhisanaya cid kale jecel ma jirto xagee lacagta ka keenay isweydiin shay nin sarkaana waxaa lii sheegay laba guryo masarooda lii keenay laba nin oo saraakiil hoosaabaa dhisanaya weliba waa guryo dabaqyaad lacagtii amniga ku ilaaliya liida la lexsanaya guryaal gursan marka waxaa keenay waa isla xisaabtan la-aan marka isla xisaabtanka diinta islaamka waxay leedahay qofka markuu qaan gaaro laba malag baa labada garab loo saaraa xumihiisa iyo samihiisa qora waxay u tahay indication ama tusaale u tahay isla xisaabtanku qiimaha uu leeyahay haddaan la isla xisaabtamin oo qofka mas-uuliyadaha lagu aamina dayaca ama khayaameeya aan lala xisaabtamin dowladnimadu macno yeelan mayso meel tuuga isugu tagtay noqonaysa maya doonaynaa meel tuuga isugu tagtay maya no wayaan ilaana marka isla xisaabtanku waa gondhiga dowladnimada waa inaan marka waxaan ballan qaadayaa in la isla xisaabto musharaxiin fara badan baa jirto maanta doonaysa kursiga madaxtooyada oo xilal soo qabtay oo madaxweyne lahaa prime minister lahaa wasiire lahaa in lala xisaabtamaa la raba markaad shalay mas-uulka ahayd maxaad qabatay maxaad biisay maxaad dhacday maxaad boobtay maxaad sharciga ku tubatay miidiyaha la rabaa mas-uuliyaddaas iskale miidiyuhu maaha ninkii lacagi siiya wuxuu yidhaahda sheeg baa sheegaya maaha mas-uuliyad weyn weeye oo ah ummadda inaad u gudbisaan xaqiiqada jirta oo runta ah truth matters bay yidhahdeen haddaan runta ku dhaqanno oo aan runta ilaalino oo aan runta laga sheego qofka mas-uuliyadda hore u soo qabtay soo noqon maa waayo tuug badeed baa loodhan laakiin hadduu inta shalayna laayay shalayna dhacay shalayna burburiyey shalay hantidii boobay maantana u yidhahda madaxweynenahay oo dhallinyaradii iyo odayaashii u sabcinayaan dee annagaa iskale qayb baan ka qaadanayna qodobka kaa waan leenahay waa muhim dowladnimada uu yahay oo la rabo in lagu fiksi gareeyo ama lagu toosiyo dowladnimada maxaa ka mid a transparency daahfurnaan waxaan maqalaa dowladda shirkado chinisa ayaa badda soomaaliya inay ka kalluumaysataan la siiyey
يا كورب ما لك كلمة ما دوك برلمان لما كين شعب كلامه ورجيني ما هو وزير كي مركز جوري مدحوينه هي وحاسس كبس صبي marka waa in ay taa furan tahay heshiisyada caalamiga ee dawladdu galayso oo loobiya Ethiopia Soomaaliya waxay galayaan economic integration dhaqaalaha la mideynaya waxba la mideynaya yaa ka waray waxba lama sheegin madaxweyne waxba lama sheegin baarlamaan lama keenin ummadda khubarada lama weydiin ya laba nin baa qol ku soo shirtay waxay laba nin oo meel isugu tagtay ku soo shireen oo qarsoon mustaqbalkeena in lagu gaamiyo miyaa aqbali karnaa maya waxa la qariyo qurun baa ku jiray Soomaaliya tiraada waxa la qariyo qurun baa ku jiray marka wax qol gudihiis laba nin ku soo aaday waa wax tuuganimo wixii fiican banaanka la keenaa gob horteeda caana lagu barxaa la kaalay hadda wax isku hala dhuumanina ayaan leeyahay midda kale muhiimka ah way anti corruption ka sidoo naas soo noo saameeyay aad baad ugu waqta gaar ahaan xilliga doorashada waxaan magac ku yeelanay inaan odageenu laaluus qaato duubkeenu laaluus qaato sheekheenu laaluus qaato ergegeenu laaluus qaato kii xildhibaan raba laaluus bixiyo madaxweynuhu laaluus bixiyo qoob dumay oo fitan wada gaaray oo aan damiir iyo dannimo lahayn baan magac ku yeelanay maanta waxaan iska celin xaaraantaan iska celin wey laaluuskii baan iska laan wey وساسا كوسي نوان كرنا مايا وحاوي وحي إلهي حاران تنميه هدان حالاليسانو وان بريرنو عارض إلهينا ونقول عيسى وحي عن ربني وجودين إلهينا كل وفاشل بين غني وحاوي الدولة التفشيلية وحكمي دا corruption كاللاروشكا أو مباحة أو normalization كالغدي سياسة أنه يقول لك أنت سيدي بدعاني بيسوق تالان نكي العقب بدن بايسكاله قال لك كل شيء سيادتك إنه نكي أنا ومشاكل قال إنه تكني إنه الدين لو إسلام لعنا لنا هاي هذا أنا قد تمير في عناده نما لنا وقال نكي أنت قال هاي بيع عابد وحو كحماري وكفاري إنا أنا وأنا كحماري وينه أو كفاري وينه ده ما هو بس من نقبل تاسمالي ما وحال الرباع الرتاس إن أنت على كأنه هو أن دينه أو يسكو براروجينه أنا corruption كا فساد كأمتان دقالة هذه يتنمى هذه يدور النمى هذه بابية وين ديننا أو ما يبغانا أنا هذا ملعوبنا وعبارة قال إن الحين تدري وعلي لا corruption وعلي corruption هو عبارة الكيس ما عرفت هذه هذا أنا أروح عشوائي من توصلك كعون صوت دنيا واحد دولة الدنيا وcorruption كعبارة هو السمير هنا والعقل نسينا دايا لنا وهذه بدنا بشكل حفظ حرام عروض الحسين وعن هذه هذا كور قف صوماليا ومجع التاريخ كله إنه لالوش ديني اللي هو المهم غير نساء يا لنا نساعد بنا يحبون ويعيشوا عمرين مركز وحين ونبقى كوسة خير يوحد يرادا مسمى يرانا اللي يرادا نقاس في جبوتي بقى عيسوها وحكيش قيجر وزارة المالية ده ودي التقوى هانجري باليري نيجي وان الضوء لا ترى نبى نتوسع النواوين تبليغ قصوى سيس على سبب تشارك مركز دبي سوى شيء إنه كرامينا تدخل corruption جديدة الحوا تتكوناك إنه كبر بارنا الحوا حمان تينا نكرنا الحوا وحوي جوبنيهم معناه وحوي حمان تديدا نيجي جوي محيري جوبنيم الدلال وجومه هوا دارت سوقلي وين بدكنا جوبنا نو هذا دور هذا النفط الدقيق جلسة وين الحماة ديدا دارت جوب إنا نقط وين رد شيئنا أو كبر بارنا سياستنا مجتمعنا إن رد شيئان حاران تديدان حمان تديدان مركز دارك ما تعوين حلقة دور شغلة كلام ورياشة مسؤوليته قد صارت إرجع لا يشرب من صغر هو اللي ما قرر كل لا يشرب بحية كير يا ماشي مدحويني لا يشرب أو مشرعي لا يشرب بحية عن علامتينه أو بدي انتسان نراها لا يشرب بحية ديسكواليفاير على قديمه waxay baan tahay arintaas uu ka qayb gal balaaran oo ijtimaaciya oo qof walba meeshiisa uu kaga dagaalamo waxaan ku xigaa waan niri waxa weeyaan ammaanka reer muqdisho 30 sano ayaad muqdisho ammaan ka dhigaysa caasimadda Soomaaliya iyada ah oo Soomaaliya oo maanta haday ammaan tahay muqdisho population 6 milyan bugaar horta ceebtaas waa noo taala dagaalkan dadkii deganaayo muqdisho ammaankeedii 30 sano way adinka la weydiinay
dowlad kastoon deennana haddaan qabanayna tarcaba qabto maxaa sababay in ammaanka la sugo indhaa aad loo fiirsaa crime politics waxa weeyaan siyaasad dambiilayaal keliya ay wadaan dadkii sugayaa mushaarkooda la siin mayo lacagtoodii waa la qaadanayaa facility ay u baahnaayeen waa laga curyaminayaa waa lagala tegayaa maaldood nin baa wuxuu ugu yiri Nairobi aan u joogo nin dalaalo guryaha gadow wuxuu yiri liis dheer waxaan ku siinayaa dadka mas'uuliyiinta ee dawladda u shaqeeya ilaa Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada guryaha ka gatay waxay u badan yihiin dadka amniga ka shaqeeya gaar ahaan nabad sugidda iyo booliiska marka ammaanka haddaan corruptionka lala dagaalamin iyo musuqa iyo dadka ka shaqeeya weligeed lama sugi karo meeshaan nimca taal lacag baa taal dunya taal ninkii yimaadaba ka hantoobso wax yaraad u rabo waxaa rabaa marka reer muqdisho odayaashiina iyo dhalinyaradiina iyo mas'uuliyiintiinu xil gaara inaan iska saartaan magaaladan ammaankeeda in la sugo haddaan anugu madaxweyne noqdo insha allahu tacaala waxay noqonaysaa isaga priority-ga koowaad xamar muddo hal sana weyne ammaan noqota oo qof kastoo Soomaaliya yimaada gaarigiisa ku wataa muqaadaro magacaasheeya ayada bulshada la ciqaabin ayada bulshada wadada laga xirin ayada bulshada deedmeedkiina garbaha ku qaata taariikhdaas waxaan ku xusuusanaynaa nimanka la baxay nabad iyo nool xamar ciqaabta ay geliyeen iyo dagaalka ay la galeen haddii wala raggeeda ka qabta ka warrama adinka rabtiin in laydin bulaysto marka qodobka u dambeeya weeyaan waxaan rabnaa hay-adaha dawliga in la reform gareeyaa raba wax kastoo bini aadamka uu dhiso waa duugoobaan waa duqoobaan marka haddaan la reform garaynin oo aan la bedelinin oo la cusboonaysiin oo la waafajinin duruufta iyo baahida xilligaas bulshadaas u qabto ma shaqaynayaan systemkii la dhisay 60kii inaan maanta ku shaqayno caqligalaan faham bay rabtaa iyo in la tadawuriyo nidaamka maxaa maanta loo baahan yahay maanta wixii loo baahan yahay baa rabaa inuu noqdo xeeladda iyo xeerka lagu shaqaynayo hadda kor waxaan weydiiyey mid mugta gudoomiyaha degmada waa beri ama gudoomiyaha xaafadda haddaan joogno gudoomiyaha cabdicasiis muxuu qabtaa cid garanaysaa ma jirto waa horaa waxaa sameeyey dowladda horaa samaysay weli war iska daba gala war ma loo baahan yahay maanta ma jirto marka waxaa rabaa waxaan dib inta loo eego dib loo ifaalo bugareeya la qabto haddii la reform gareeyana waxay adeegii loo baahnaa ee bulshada ayaa la rabaa in la qabto maanta magaalada muqdisho qofkii dhinta xataa meel warqad dhimasho ma samayn karto laakiin waxay leedahay magaalada muqdisho gudoomiyaha siyaasadda ay leedahay war muxuu siyaasad maxaa ka galay war meeshaan adeeg bulshada la rabaa qof dhintay shahaado ma siin kartid maamulka magaalada muqdisho ma siin kartid gudoomiye siyaasadeed maxaa ku fadhiya gudoomiye siyaasadeed waxaa la rabaa baahida bulshada adeegay u baahan yihiin in la qabtaa raba marka dowladda waxaa rabtaa faham iyo xilkasnimo iyo baahida maanta la qabo in la darasgareeyo oo la soco aniga hadda Soomaaliya muddo dheer baan ka shaqaynayay si dhagaan uga warqabaa professor xasan soo sheegaan waxa weeye meeshii kushanaatadii Soomaaliyana waa xiriir baan la leh hadda qorarkan meesha ku dhagan gaalkacyo ku dhagan xawar meeshii labaad ku dhajiyo waa gaalkacyo maamulada kale oo dhan waa gaarsiinayna insha Allah waxaan rabnaa inaanu gaarno dadka xiriir la yeelo aan ka leexano dadka Soomaali dhibaateeyay haddaanu rabno mustaqbalkeena dawliga inuu hana qaado waxa asaas ah inaanu xoojino dimuqraadiyadda waxa la yiraahdo dimuqraadiyaddu ceeb maaha dimuqraadiyaddu waxa weeyaan nuxurkeedu dadku inay doortaan oo si xor ah u doortaan dadka hogaaminaya magaalada muqdisho in maalin walba madaxweyne yimaado qof u soo magacaabo asagu wajiyo xaq male waa inay isdoorataa waa inay isdooran kartaa wax diidaya ma jiraan qofkay doortaan ba mas'uuliyadda u dhiibanayaan oo ku xisaabtamaya marka qodobadaasaan hadda soo sheegay dhammaantood waa qodobada aasaasiga u ah in dowladnimada la saxo oo la fiksi gareeyo oo ay noqoto dowlad u adeegta ummaddan danaheedana ilaalisa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxaa laydinka rabaa haddaad rabtaan inaad guulaysataan xumaanta inaad diidaan xaaraanta inaad diidaan runta inaad sheegtaan wixii dantiinna inaad difaacataan difaacu maaha qoriiqaadka maaha waa ra'yi iyo inaad ku difaactaan waxaan leenahay haddii doorasho xaq ah oo xalaal ah oo xor ah la qaban waayo waa soo dibad baxaynaa wadooyinkaan seexanaynaa ma aqbalayno in la boobo
marka waxaan leeyahay khudbadii waqtigii baa la joogaa waa qadaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay guul iyo gobonimo waxaan leenahay guul iyo gobonimo gobonimada waa fahamnaan u malayn waa inaan xumaanta diidnaa musuqa diidnaa xaaraanta diidnaa ninjeclaysiga diidnaa danteenna meeshaan ka aragno aan garab istaagnaa waa mahadsantiin salaamu calaykum